caadada labaad ee linooga baahan yahay waxa weeyaan haddii aynu rabno inay nolosheena wax ka bednalo sacaadiya raaxa aynu helno waxa weeyaan daawade waa inaad qaadataa go'aamaha waa inaad go'aamada qaadataa waa inaad noqotaa qof go'aama qaata maalin kasta iyo waqti kastoo loo baahan yahay daawada go'aan qaadashadu waa shay aad u muhiim ah bale waxa la yiraahdaa warwarka iyo walaaca waxa keena qofka oo go'aan qaadan waaye haddaad go'aan hawl baa ku taala hawshii ku taalay ayaanad weli go'aan ka qaadan maxaa imanaya inaad warwarto haddii hawlaha ku yaala maalinkasta aad dib u dhigto beri baan qabanaya saadam baan qabanaya maxay keensanaysaa warwar in markaas aad ku jirto markasta warwar baa ku taagnaanaya marka waxa la qofku inuu go'aamada qaato oo isdhaafiyo hawlaha xafiis baad fadhidaa waxaa tahay nin maamulo ah waa lagu yimi hawlaha lagu leeyimi go'aanka maad qaadan beri igu soo noqdaa tiri saadam igu soo noqdaa arrintaasi warwar bay kugu abuuraysaa markastoo dadkii go'aamada rabay aad aragtana waad warwaraysaa maxaa markaa laga rabaa go'aan qaadasho waa inaad la timaadaa haddaba go'aanka haddawada marka la qaadanayo waxaa jira qawaacid la raacaa jirta steps la raacaa jira stepska haddaad raacdo go'aanka markaad qaadanayso naftaadu raaxa iyo sacaadi dareemaysaa go'aanka markay qaadato oo maxaa ugu hore talaabooyinka ugu hore waa maxay go'aan qaadashadu markaad go'aanka qaadanayso waa inaad xaqaa'iqda ku qotoma go'aanka aad soo saarta kiiska aad rabtaa inaad ka go'aan qaadato waa inaad raadisaa maxaa ka jira horta factiskiisa waa inaad soo saarta xaqaa'iqdiisa waa inaad soo saarta oo waxa lagu diidan yahay marka qaar baa wax mala awaala qofku ka fakiraya marka qaar baa wax mala awaan yahay ku keenaya inaad warwartaba tusaale ku siinaya adigoo iska jooga gurigaaga caloosha ku xanuunta markaas maxaa kugu soo dhacay niyo malaha xanuun baa kugu dhacay malaha macaan baa kugu dhacay malaha dhiikar baa kugu dhacay intaasi markay kugu soo dhacdo warar baa kugu bilaabmaya wararkaasaad uga hortagi kartaa go'aan inaad qaadato oo go'aanka saad u qaadanaysaa go'aanka waxaad u qaadanaysaa kiiskaa ku haystee wararka waa inaad xaqiiqadiisa ogaataa xaqiiqadiisa markaad ogaato nafis baad noqonaysaa oo xaqiiqadiisu maxay noqonaysaa dhakhtarka u tag isa soo baadh markaad isa soo baadho ee dhakhtarka aad u tagto ee dhakhtarku yiraahdo caloosha macaano kuma hayo dhiikarna kuma hayo xanuuna kuma hayo maxaa imanaya nafis inaad dareento marka warwarkii walaaci maxaa kaa kaxiyay waxaa kaagaya go'aankii xaqiiqada ku dhisnaa ee dhakhtarku ku siiyey marka waxa lagu leeyahay go'aan markaad qaadanayso marka hore xaqiiqadiisa raadi adigoon xaqiiqada helin waxaad ka warwaraysaaba wax jira inaan ahayn marka waxa lagu leeyahay si aanaad iskugu mashquulin waxaan jirinba oo dad badan baa waxa jira waxyaala nafsiyaadkoodu ay ku soo tuuraan waxa laga yaabaa qof dumar inay xaamilatay uur leedahay nafteeda maxaa ku soo dhacaya bila lagu qala ilmaha bilaad ku dhimataa bila waxyaalahaas ku soo dhacaya sidee waxaa kaga badbaadi kartaa waxay kaga badbaadi kartaa inay nafteeda xaqiiqada ay tusiso ay baadho tiro koob ahaan intaasoo ilmo ayay dhashay mid kaliya ma lagu qala waa maya haddii taasi jirto midna aan lagugu qalin maxaad warwaraysaa intaasoo caruura soo dhashay waxaad ku warta meesha ma yaallo marka inta badan dadku waxaan warwarka ku keenaya waa waxyaalo badan oo mala awaala oo xaqiiqada qofku markuu soo helo runtii naftiisu ay nafis dareemayso walaacina uu ka baxaayo sidaadana daawada markaad go'aanka qaadanayso waa inaad horta baadhaa go'aankan maxaa ka jira ma wax jira mise maaha intaa markaa u soo baxo aad ogaato go'aankan inuu wax jira yahay oo xaqiiqadan ay jirto waxaad isweydiisaa oo talabaada maxaan ku xallin karaa imise xal baan heli karaa marka wax alla wax xal noqon kara inta shay ee xal noqon karaba waa taxaysaa xalka koowaad xalka labaad xalka saddexaad markaad xuluushas iyo maxaa solutionska aad sida u taxdo ay maxaad isweydiinaysaa waa maxay xalka ugu fiican ee mushkiladan aan ka qaadan karaa markaas waxa ku soo baxaya marka sida u wada eegtay xalkaasi inuu ku fiican yahay xalka ugu fiican marka sida u soo saarto waxa qodob muhiim ah inaad ka qaadato fulisaba markaad ka fuliso nafta nafs bay dareemaysaa sacaadad helaysa tusaale aan ku siiyo nin galan la oran jiray ayaa wuxuu ahaa shirkad insurance ka shaqeysa taamiinka ka shaqeysa ayaa runtii uu ka shaqeyn jiray oo ku taala China waqtigii uu Japanisku qabsaday dalka China ayaa shirkadiisa waqtiga markaa in Shanghai ku taalay ayaa la wareegay markii loo tagay la yiri waa la qabsaday dalkii
iska soo wareeji xisaab xidhkii soo wareeji ayaa xisaabtii shirkadda ayuu wareejiyey laakiin se markuu xisaabtii wareejinayay ayaa waxa uu ka tegay lacag ayaanu ku darin $750,000 ba aan ku darin ayaanu xisaabta ku darin oo meel uu ka reebay oo wuxuu ka reebana farac kale oo meel kale ku yeela lahaa markii xisaab xidhkii uu gudmiyey ayaa waxa ogaaday ninkii maamul madaxa ka ahaa ciidankii maxaaye Japanese kadib warkii baa loo keenay ninkii cadaanka ahaa ee maamulaha ahaa waxa la warkaagii waa la ogaaday inaad lacagta ka reebtay ninkii meesha haystay ciidanka ka socday Japanese-kuna aad buu cadhaysay ninkii maamulaha waxa ku dhacay warwar wuxuu ogaaday haddii arintaa la ogaado la soo qabto in arintiisu halista ay dil ay noqonayso wuxuu arintii warwar walaac bay u abuurtay biyir laakiin maxaan kaga badbaaday biyir waxaan kaga badbaaday biyir waxaan sameeyay go'aan qaadashada ayaa qaabkan hadda aynu sheegana ayaanu sameeyay biyir waan fadhiistay biyir qalin buug baan soo qaatay waxaan isweydiiyey horta waa maxay mushkiladan ka cabanaya waxaan ogaay mushkiladu inay tahay arintii aan sameeyay in igu keeni karto in la xiro oo nimankaas ay qabtaan inta markaan arkay mushkiladu inay tahay ayaa waxaan isweydiiyey xalku muxuu noqon karaa markaas waxa la wixii xal noqonaya baan soo tahay oo koow waxaan iri xalku wuxuu noqon karaa inaan baxsado kadib waxa ii soo baxay hadaad baxsato nimanka way ku soo qaban doonaan wana ku dili xal labaad baan isweydiiyey waxaan iri waxaan sameyn karaa inaanan gurigaygaba aan iska joogo nimankaba aanan soo bixinba taana waxaan kaga jawaabay bilaa nimanku gurigaba kuugu imaadaanay halkaa kaa soo qabtaan haddana xal saddexaad baan suuso waxaan iri mid intaad u tagto ninka aad ku tiraahdidba arrinta u sharaxdid markaase waxaan ogaadayba inaan luqadan ingiriisigaba aanu garanayn oo taasina mushkilad kale in isfahmi weynaba ay keeni karto xalkii afraad baa wuxuu noqday inaan iraahdo sidaadii hormaad u shaqatagtid sharkadaadii sideed awalba u tegi jirtay yaan lagaama shakirinee iska tag sharkadaadii iska fadhiso xafiiskaagii haddii lagugu imaado ninka kuugu imaado muxuu ahay hawshan wadaana markaasuun la hadal wixii xuluushii markaan saa u eegay kaa ugu dambeeya wuxuu noqday kaa ugu fiican kii baan qaatay biyir subaxii baan shaqadeedii tegay biyir shaqadii markaan tegay ninkii waanu sargnay biyir laakiinse waxaanu saragnay isagoo cadhadii ay ka degtay caadi yaran noqday in yar buu ila hadlay kadibna waxba ima oran muddo yar kadibna ninkii waa la bedelay wuxuu maxaan ku badbaaday wuxuu waxaan ku badbaaday markii aan go'aankayga qaabka cilmiga u taxliiliyay ee go'aankii ugu fiicnaa qaatay ayaan badbaaday buu yiri haddii aanan qaabkaa samayn lahayn waxaa dhici lahayd buu yiri intaan warwalaaco inaanan go'aan aanan ka fiirsanataan qaado dabeetana aan noqdo qof meel xun ku dambeeya dabada qisidan waxay ula jeednaa go'aamada markaad qaadanayso noloshaada oo dhan waana steps qaad qaata koo waa inaad isweydiisaa haddii mushkilad ku haysato waa maxay mushkiladan haystaa mushkiladan markaad ogaato waxay tahay waxaad isweydiisaa imise xal bay mushkiladan yeelanaysaa inta xal markay kuu soo baxaan xalka ugu fiican ka dooro ka ugu fiican markaad ka doorato ku dhaqaaji fa idaa cazamta fatawakkal cala allah markaad soo saarato xalka ugu fiican cidna ha u joojin daawade qodobkaasina caadadaasina waxay ahayd caadadii labaad ee qofka guulaysta qofka saacada raba looga baahan yahay qofka saacadada raadin wax laga rabaa noloshan go'aamay u baahan tahay go'aan kasta inuu waqtigeeda uu qaato kuna dhaqaajiyo mar alla markaad ku dhaqaajisana wuurkii walaac waa ka tagaya